بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان أصحابتي دقيمة يقيا له كحرا شبكة solarportal.com solarportal Facebook Live يا solarportal يوتيوب waxaan ku sugannahay magaalada Istanbul ee cariga wadanka Turkey jaamacadda caanka ah ee la yiraahdo Medipol University ama jaamacadda Medipol waxaan ugu casuumay shirkad Soomaaliyeed oo waxbarashada wadanka Turkiga ka caawisa ardayda Soomaalida iyo ajaanibta ah ee adduunweynaha kala nool maanta waxaan isku dayaynaa inaan gudaha u galno oo aan soo eegno meesha ardaydu waxay ku bartaan meelaha ay tagaan ka hor intaan barnaamijkan bilaabin waxaanu booqanay xafiiska shirkadda oo la yiraahdo Askuni la yiraahdo oo ku yaala isla bartamaha magaalada Istanbul waxaan ku aragnay dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah oo gabdho wiilal isugu jira iyo ajaanib oo ka shaqeynaya iyagoo diyaarinaya ardayda ka imaanaysa Soomaaliya ee dibadda Soomaali kaliya ma ahan Soomaali badan oo Mareykan Canada Europe wadamada kale Afrika ka timaada iyo Afrikaan aad u fara badan iyo Carab ayaa wax ku barata marka xafiiskas informationkiisa markuu barnaamijkan u dhamaado ayaan soo bandhigi doonaa runtii aad ayaan wada dhacay qaabka ay wax u sameeyaan siday dadka u soo dhaweeyaan viisaha ugu dalbaan jaamacadaha private-ka ay qaaska loo leeyahay kuwa dawladana ay ula shaqeeyaan marka bal ku soo dhawaada barnaamijkan aanu ka diyaarinay Askuni iyo jaamacaddan ku taala wadanka Turkey ee Medipol daawadayaal intii aan ku sugnaa jaamacaddan caanka ah ee ku taala caasimadda ganacsiga wadanka Turkey magaalada Istanbul waxaan fursad u helay in aan tago qaybta lagu barto media gaar ahaan ardayda doonaysa in mass communication ay bartaan iyo waxyaabaha la xiriira film haday ahaan lahayn new media cusub sida social media iyo waxyaabo aad u fara badan marka qaybtii Medipol University ayaan gelayaa studios kala duwan meelaha editka lagu sameeyo meelaha kala duwan ayaan isla eegaynaa bal isoo raaca idinku mahadsan meesha runtii aadka ii soo jiidatay ee jaamacadda dhexdeeda waxay tahay meesha studioga ardayda lagu baro qaabka live broadcasting iyo professional broadcasting loo sameeyo soo ku aragteen green maradii ahayd ayaa gadaal taala isla markaana kaamirooyin waxa yeela runtii aad casri u ah oo ah kuwa ugu dambeeya adduunka oo hadda loo isticmaalo waad aragtaan shirkadda caanka ah Von Braun ayaa kan sameysay sida uu dhisan yahay iyo sida loogu duubo wax walba halkan ayay yaalaan ardayda halkan ayay fadhiyaan qaabkan loo baraa qaabkan loo soo dhaweeyaa halkan waxa laga aqriyaa qofka news ku aqrinayo kale oo sida professional loo sameeyo marka dhankan kalena waxaad ku aragtaan meesha controlka laga sameeyay oo studio ku yaalay oo dhanka dambe camera halkan ay taalo waad u jeedaan waxa yaala a big studio oo control laga sameeyo gudahan u galaya marka waxaan soo arkay runtii jaamacad dhanka media warbaahinta nooc walba sida loo sameeyo editingka film
studios kala duwan, radio broadcasting, studio professional ah oo casri ah. waxayna u dhigantaa any jaamacad oo adduunka ku taal haddii aan Mareykanka, Canada iyo waddanka UK. staffka, shaqaalaha ka shaqeeya iyo dadka waxbara ee macallimiinta professoradana qaabkay wax u sameynayaan runtii iyagoo editgareynayna waan daawaday hal maalin oo dhan ayaan joogay aad ayaan ula dhahay. intii aan ku sugnaa jaamacaddan caanka ah ee ku taalla magaalada Istanbul waxaan fursad u helay inaan soo galo iskuulka ilkaha lagu barto, School of Dentistry, oo sida la ii sheegay kan ugu weyn waddanka Turkey oo dhan. waxaa lagu sameeyaa saad ku aragteen wax walba oo dhanka ilkaha ah. meeshii hore sawirkeeda aad soo aragteen bilowgii ayaa laga soo bilaabaya, ardayda halkan ay fadhiisanayaan. way ka badan tahay ardayda dhan ku aragtaan, way ku filan tahay. rectorka jaamacadda wuxuu ii sheegay oo qaybtan u qaabilsan in kala bar kaliya ay fadhiisaan, waana meesha Turkey oo dhan ugu weyn School of Dentistry jaamacaddan. weli anigoo ku dhex jira dhanka iyo caafimaadka kulliyadda oo runtii aad u weyn, waxaan soo galay qayb very interesting ah kaasoo ah meesha anatomiga departmentgeeda ah oo dadka maydkooda lagu baaro isla markaana la ogaado cudurrada dilay ama haddii dembi uu dhaco lagu eego meel walba. marka waxaan idin tusayaa meesha ugu weyn ee Turkey oo dhan oo sariiraha noocan u yahay oo maydka lagu qalo. hadda daqiiqad ka hor intaan barnaamijka sameeyay markaan ku wareegayay waxaan si live aan u daawaday mayd la qalayo oo baritaan cudur lagu sameynayo. runtii ma rabin inaan idin tuso, marka sidaa awgeed ayaan u joojiyay. marka dabaqa lixaad ayuu ku yaalla, waana meesha keliya ee adduunka sida la ii sheegay ku yaallo meel dadka sidan lagu baaro markay dhintaan oo sariirahan san u fara badan yaallaan. inta kale basementka ama guriga meesha ugu hooseyso ayaa la dhigaa. laakiin jaamacadda ardayda si live ah ama toos ah ayay waxay u bartaan maydka qaabka loo baaro. waad u jeedaan intoo dhan meesha dambe hadda mid kale la soo geliyey oo ka socda. marka dhanka kalena insha Allah waxaa idin tusayaa meesha sida tooska ah ardaydu ay ugu bartaan anatomigii ama jirkii qofka bani aadamka ah ee bal ila daawada. daawadayaal intaan ku sugnaa jaamacaddan caanka ah ee Medipol waxaan fursad u yeeshay qoys Soomaali ah oo ka yimid waddanka Mareykanka oo wiilkooda oo 17 sano jira ama 17 jira in uu jaamacad halkan ka bilaabo. waran aabaha ayaan helay, hooyadan halkaas ay taagan tahay. magacaaga iyo meesha ka imaatay sheeg horta. Cabdicasiis Maxamed Cigaal, United States of America.
Columbus Ohio ما شاء الله maxaa ku dooratay jaamacadan adoo wadankii adduunka ugu jaamacad fiicnaa ku nool First of all cunugan kaliya ma aha wax ii jooga wadankan ما شاء الله waa cunugii saddexaad oo jaamacad iga aadaya wadankan waxaan ku noolaa muddo 3 sano iyo xoogaa ah sida ogtahay ba qurbaha dadka Soomaalida ah oo indhawaala hadba mid bay isaga guuraan صح sida darteed indhawaala waxa interest gareyn haddaan Soomaali nahay dalkan Turkiga oo aan aaminsanahay inaan opportunity badan ka helino oo ay ugu horeyso inaan xoogaa dhaqankeena islaamnimada inuu u fiican yahay wadankan deganahay anti mugurtaan ku leeyahay ilmaha jaamacada iga dhigta wiilkan waa wiilkii saddexaad hadda jaamacad ii aadaya jaamacadaha wadankan oo criteria kala leeyihiin way kala sareeyaan صح ranchiga markaad Google garayso jaamacad walba waxay ku fiican tahay wadagaan doontaa wiilkiga 17 years wuxuu doortay Faculty of Economic and Finance dhaqaalaha iyo maaliyadda dhaqaalaha iyo maaliyadda صح yuu doortay jaamacadii ugu fiicneed oo markuu Google garayay oo helay bay noqotay jaamacadaani meesha aan deganahay uma dhawaa laakiin rabitaankiisa anoo ka turjumaya waxaan go'aansaday inaan jaamacadda u rabo aan keeno shirkadda Askuni markaan ka dhaxgalay maxay ka caawintay in wiilkan uu jaamacadan u imaado maxay ka caawintay Askuni waxay iga caawintay waxay ila raadisay admissionka waxay iga caawisay discount la ii sameeyo marka waan u mahadcelinayaa shirkadda Askunina wiilkan markuu jaamacadda dhameeyo wadankii waa inaad ku celisaa wadanka uu shaqeeyo ilaa waa Soomaaliya insha Allah taala thank you very much sir soo dhawaabtay ما شاء الله aad iyo aad u mahadsantiin ugu dambeyntii waxaan fursad u helay maamulaha iyo aasaasaha shirkadda Soomaaliyeed ee ka dhisan caasimadda ganacsiga wadanka Turkiga magaalada Istanbul ee magaceeda la yiraahdo Askuni Abdikariim Tahliil ku soo dhawow barnaamijkii waan sameynay waxaad ii sheegtaa horta maxaad qabataan ilaa maanta aan hadlaynay maxaad qabataan waa maasanta horta gudoomiye Solo intaan horta waxaan qabto aanan ka hadlin horta waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo barnaamijkan quruxda badan oo aan adiga maanta wada sameynay wali boqol saash adiga sameeyay waxaan sameeyay male horta aan sameeyay ka mahadcelina inaad naga aqbashay inaan ku soo tusno mid kamid ah jaamacadaha quality kale ee ardayda Soomaaliyeed ay dalbadaan haddii aan jawaabta soo laabto shirkaddeeda Askuni waxay qabataa soo saarista waxbarashada dalka Turkiga iyo dalka sidoo kale Cyprus iyo sidoo kale fiisaha waxbarashada yani shirkaddeena waa shirkad ku takhasustay kaliya waxbarashada oo kaliya yani marka dadka waxaan ka caawinaa sidii ku heli lahaayeen waxbarasho qiimo jaban quality sare leh tusaale ahaan Soomaaliya ayaan joogaa 20 jir ayaan ahay waxaan doonayaa inaan jaamacad ka dhigto inteen ka bilaabaya marka idin la soo xiriir maxaad ii qaban kartaan ma visa ii sameeynaysan ma soo dhoofinaysan maxay sameyn kartaan horta markii ardaygu uu go'aansado inuu Turkiga wax ku barto ama Cyprus wax ku barto waxa horta muhiim ah in la siiyo xog marka waxaan sameeynaa la talin waxbarasho oo ah qofka meesha ku haboon qiimaha uu ku dhiganayo requirementiga looga baahan yahay xogta markaan siina hadii uu ku qanaco xogtiisa markaas horta waxaan u bilaabnaa processka soo saarista jaamacadii iyo processkeeda markii jaamacadda loo soo saarana waxaan u bilaabnaa processka visa hadii aan lahayn jaamacad dawlad iyo hadii aan lahayn jaamacad barefadba ardayga waxaan ka caawinaa in uu aruuriyo dhammaan dokumentigiisa safaaradda uga baahneed lala geeyo safaaradii xataa la siiyo asoo gurigiisa jooga hadii uusan tagi karin safaaradda laga qaado baasaboorkii ee loo soo saaro fiisiisa markuu fiisiisa helana waxaan ka caawinaa in tigidkii iyo dhammaan processkii kale oo aan ku xirno xafiiskeena hadda Istanbul aan ku leenahay aan ku soo xirno si ayaguna ugu soo dhaweeyaan airportkii uga diiwaan geliyaan jaamacaddii sidoo kale ardayga u siiyaan deegaankii uu degi lahaa kadibna processkii iqaamada iyo waxa bilaabanayo in ardaygaas lala socdo oo follow up lagu sameeyo inta uu jaamacadda dhiganayo wixii problem soo kordhay maanta waxaanu tagnay xafiiskiina oo ku yaala bartamaha magaalada Istanbul runtii ajaanibi Soomaaliya ka shaqeysa marka waxbarashadan Soomaali kaliya ma ahan Soomaalida ku nool dibadda Soomaalida wadan ku nool ajaanib wadamo badan ka yimaaday ayaad u sameeysan Soomaa waa runta waxaan u sameeynaa xafiiska saa aragtay waxa ka shaqeeya ajaanib saa sheegtay kaliya meesha aan xafiis ku leenahay ma ahan Soomaaliya wadamada Afrika maanta xafiis badan aan ku leenahay saas awgeed taasina waxay keentay in shaqaalaha ay noqdaan shaqaalo international ah waliba shirkadu aysan focus ka saarin Soomaalida sidoo kale waxaan caawinaa dhammaan ajaanibta kale oo ama ha noqoto Afrikaan ama ha noqoto siiba ha noqdaan Soomaalideena ku nool haday rabaan wadamada Europe ama America ama Canada wadamadaas ka imaanaya haba ku jiraan haday rabaan laakiin waxaan dhigi karaa waa Soomaali balas wadamadeena Soomaalideena kale qurbaha ah iyo ajaanibta kale intaba ugu dambeyn maanta waxaan soo booqanay jaamacaddan caanka ah ee Medipol oo runtii aan aad ula dhacay jaamacado badan ayaan adduunka arkay rankinka meesha kaga jirtana adduunkana waan arkay meel kastaan ku soo wareegay bal xiriirka idinka dhaxeeya iyo Soomaalida dhigata waxay nooga sheeg jaamacaddan jaamacaddan Istanbul Medipol horta waa jaamacad barefada
kuna soo caan baxday maadooyinka caafimaadka waxaana iska leh wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga hadeer waxayna ka mid tahay jaamacadaha ugu quality-ga badan dalka Turkiga runtii marka la fiirsho waa jaamacadda 12aad ee xagga khaaska marka la fiirinayo jaamacadda 12aad jaamacadda private-ka ugu fiican iyo jaamacadda 66aad ee jaamacadaha Turkiga marka la fiirsho ugu fiican yani 206 jaamacadood waxay uga jirtaa 66 taasna runtii waxay ku tusay quality jaamacaddu ay leedahay sidoo kale facility fara badan ay u haysaa ardada jaamacadaha qaarkood ay soo haynin oo ay ka mid tahay inay abaal mariso ardayga kaalinta koobaad galo kaalinta labaad galo kaalinta saddexaad galo iyo inay abaal mariso ardada dhacda xataa ardayga dhaco jaamacadda kaliya ee free ay ku dhigtaan waa hadduu dhaco ardayga taasna runtii waxay siinay ardada jaanis badan oo ah inay qalad galaan in la abaal marinayo xataa qalad galaan iyo inay samayso discountno dadka walaalaha ah dadka imtixaanada ICT-ga ama GCE-ga darajo fiican ka haysto iyo wixii la mid ah marka jaamacaddan waa jaamacad bareefada luqadeeda 100% waa English qiimaheedana waa macquul qof kasta oo daneynayana oo ku soo dhaweynayna إن شاء الله أنا ما سنتهي إلهي تجري هذا برنامج مركو لماضو ماشي قدام بيسو وحد كو أركي دونتان أخبارات كتلفونات إيميل كويب سايت كفيسبوك وحوالبا أو كلا حريري كرتان رنتي ورق بروفيشنال intaan la joogay waxyaabo badan aan ku qancay tuseen Soomaalidu xoogaa aad bay uga sheegan jireen qaabka loogu soo dhaweeyay dhanka waxbarashada laakiin raggan markaan arkay qaabkay u shaqeeyaan ee gabdhaha la shaqeeya aad ayaan la dhacay marka akhbaaraadka mar alla markuu barnaamijkan dhamaado inta ugu dambaysa waxaad ku arki doontaan wax walba aad uga baahantihiin hal midaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo intaan barnaamijka ka bixin oo ah daawadayaashan waxay naga soo waxa laga yaabaa inay kala joogaan adduunka daafiisa saas awgeed waxaan kula talin lahaa inay galaan website-keena askuni.com oo ay ka heli karaan dhammaan xogta jaamacadaha dalka Turkiga haddii dalka ay joogaan waxay soo booqan karaan xafiiskeena Hargeysa Muqdisho Garowe Baydhabo iyo Beledweyne sidoo kale waxaan rabaa inaan u sheego macaamiishan meel kasta ay joogaan in jaamacadaha bareefadka oo jaamacaddan maanta aan joogno ay ka mid tahay soo saaristeedu ay tahay lacag la'aan ardayga waxa lacag lagama rabo saas awood qofkii u baahan in cunugiisa ama qof uu waalid u yahay oo jaamacadaha u soo xareeyo waxaan leenahay ku soo dhawaa xafiisadeena adigoo aan wali wax qarash ka bixin هذا ما سنتهي هذا ما Thank you